munaasabad ballaaran oo Siheera Sara u soo agaasimeen ururka dhalinyarada ee mutadawiciinta ee ka shaqeeya arrimaha la xiriira caafimaadka ee soo heef wargaalashiisa oo maanta xaflad ugu qabtay 90 arday oo in muddo ay gacanta ku hay tababar la xiriira dhinaca caafimaadkana ku siinayay jaamacadda Agaasimaya University ee Magalada Hargaysa. xafladan oo ay badiba ka soo qayb galeen aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyn halkaas waxa ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha ururka soo heef wargaalashiisa Siheera Cismaan Xirsi Mustafa Cabdiraxmaan Maxamuud hiyo hibaaq gelin Cabdicasiis Axmed Yuusuf معنا حفصلة أخويا عبد الكريم أحمد نوري يا أخويا سعاد عطية سنت آدي أدخل الجنين أجبت الزواج في النص العراء آدي أدخل علينا وقت من الجماعة وصوتات جبت أمر من العلم مع الدور وبحير من تعالى أن تكسي يوم كصيفه نقول كصيفه وصدر إذا كان مقطع كقوما شرط حرف كقولي في سوماليا وريتيتي حالة تشريفي فرنسيا وكاسيشن وأقول تاجر أقومها يا عافماتك رشيد أنا مقول يا جماعة أنا كنت أنتم حكومة الجمهورية أرضي كون أرضي تقولي لما تكون أرضي وبرضي أقومها بيسك عافماتك أما سيدا دفعتي لغاية ودفعتي لغاية كذا الجنساء وركب صغيرة قيدسة أكاديمية وحكومته هذه البلد ما العلمية أرضية وقت يفرسوا جلسي أساس الشيء وعطيت بقولي لما تكون أرضية مرة فحاولنا الجميع أرضية كتر أرضية أرضية halkan joogta waxaan ka soo ururinay dhammaan dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa oo ka mid ah 9 iskuul oo magaalada Hargeysa ku yaala halkan aad u mahadnaqayaa kulli aqoonyahanka madaxda Agaasimaya oo reeyay jaamacadda Badbaatuun oo isagu ballanqaad xafladii hore ka fuuqay oo ka badan qaaday baash labaad oo tababar doona insha Allah jaamacadda Agaasimaya ka caawin doona ballankiisina ardayda ugu badan ay ka soo baxeen oo ma sha Allah aad baan u mahadcelinayaa مستحضر sidoo kale aqoonyahan Cabdikariim Axmed Noogel ibaan isniin loo soo qayb galay soona agshiyay dacwadeedii aad baan u mahadcelinayaa sidoo kale aqoonyahan Sara Camiir aad baan u mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta ardayda dhashay kulli waxaan hayn xubin ururka ka tirsan markaanu ku dheeranayo la soo sheego waxyaabaha qabtaan iyo ururka waxyaabaha taagan yahay waxyaabaha soo dhan hal kelmad ama hal xaraf oo ka tirsan ururka magaciisa بقولها أنا قاعد يقول كمصطفى أنا تكلية مسوق على أوروكا أما مثلا نعود كذا شعلي يصير في الفيديو تصوره كلمة في ما فولنت فيسم تصوره متطوعين الله خلاه معنا متطوعين الله خلاه معنا أجيب كذا كلمة كذا قيد وين لكن سه نصيب ترى ودك كذا ما هنميت متطوعين صف عنا قاعدين ويشرا أوروكا فولنت في مكوش قينا ساعة بحكونا ما لهم متطوعين ودك كلام يجيو يحكي كذا halka xarafka ugu weyn ahna kan u soo gala ururka ahna kay jeclaysiyo madeedina ma taqaana wax ugu celiyo oo ah volunteerism ama mutadawacnimada waxa loo yaqaan waxa kala farxad ma wax weeyaan anagu jaamacadda Agaasimaya University inay ardayda aan wax soo barnay waxa weeyaan aqoontii aan soo gudbinay soo barnay bulshada inteeda kala sii gaarsiinaya idinkana waxaan ka rajaynayaa waxa weeyaan meeshii aad ka timaadeen iyo familieskii iyo aqoonyihiin ku aqoon karaan ama aad ku dabaqi doontaan wada soo gaaban anaga lafteeda waxa weeyaan shaqooyin noo yahay degdeg oo horeyn hada kuwaad waxa iska leeyahay ilo dhaqay maanta iyo maanta maanta goobta ku badan ay waliba fadhiyo aan jimita qaar kamid ah ardaydii baradii laba bilood ahayd labadii koorsay isku jiray first year iyo barnaamijka afraadsiga oo markii isugu yeesho noqonaya xirfadaha la yiraahdo basic skill ama xirfadaha naftisbaadinta marka labaad waxaan u mahadnaqayaa matasharafta laga soo xirfadda laga soo qayb ugu horeyn jaamacadda iyo halkan iyadoo loo fadhiyo ila kamidii dhinkii jaamacadda Agaasimaya University College Axmed Badbaatuun iyo macallinka isaguna ugu qaaliga macallin Xafsa Khaliif sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa iyaguna xubnaha kale ee jooga Sucaad iyo Cabdikariim inta kadib waxaan doonayaa inaan halkan kelmad dhiirigelin aan uga soo jeediyo ardaydii soo dhamaysatay labada kooras xirfadaha naftisbaadinta ardaydaas inka horteeda soo fadhiyaan waxaan maanta ku faraxsanahay in dadaalkiinii aad soo gasheen labada bilood macluumaad jimcaha khamiista aad idinkoo fasaxaan jiray markii hore gurigii aad weynayseen aad weliba u soo kala hayseen inta badan ardayda waxay ku dhigi jireen maalinta jimcaha oo kale geliga hore
taasina uu ku adagtay qofkii markuu shanta cisho kale wax dhiganayo labadii cisho fasax uu ahay labadii cishona uu meel kala tago marka ardaydaas oo labada cisho iyagoo soo kalahayay maalin walba imanayay oo intaa usoo dhawaanayay waxaa idinkana haqliyo waad gaadhay maanta hadafkiinii waxaana ku dheeraadeen ardayda inta muddada ay gacanta ku hayeen cilmiga ay barteen in ay halkaasi dadaalka ka sii wadaan xanaad ugu faraxsanahay inaan maanta mar labaad u taaganahay qaybtii labaad ee dhammaysata barnaamijkan ay soo diyaariyeen ardaydan qiimaha badan ee 4 xubnood ka kooban Shahaado oo barnaamijkaasina uu yahay in bal ardayda la baro waxyaabahan basic saving skills waxa la yiraahdo ilaahay baa wax badbaadiye oo badbaadiyeenu waa Allah subhanahu wa ta'ala laakiin shay walba sabab iyo in aynu inagu wax qaban karno ilaahay subhanahu wa ta'ala u yeero waxaa sidoo kale munaasabadaasi soo gabagabeeyay soona afmeeray aqoon-yahan Cabdikariin Axmed Mooge iyo Sucaad Carmiye ويلا دلالين كامل دلالين ما إن شاء الله صدق كمدود مرة يا محميان أرضينا خلي جميل إنسان إلى محسوسية إلى فرتين أقوى سمال أنو بحني الجيشو بحني دتكين أنو بحناين هذا صير هاي علمي رفض بالوري وحاول قارسين نفها بني آدم نفو حق قارسين ما جرتو مركا وحاول بري أقومتي نفي هو بالبادلها أنت وقفك إلهي وحب البادية أنت وقفك هذي الجار كميسر وعافمات وذكرتي نقطة رفضان بعد جواتي اليمين إن جسوا قاعدة أما دمشق كنت معدا أما دي بحا أما مسخريني ودتها أما داوع جاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنحط بهذا العنين والسماعية وكان هوش عدد سوقري وحنعني كل سنة يا دنيا تقيح الشيء نحوها أصابة بعد كتير إن أود كودي وحكيان يقول لي عردنا وهاي سكول كيف كنا هذا عنه هذا الوالد دمي وحكي لي الدنيا وحكي لي إرادة تصمم حويان كلمة volunteerism النفط هذا يو وقت قاعد أغريسي وحدة جودة تاسو عادي عادي بمنتها وتو تاريخ السومال هذه دبلومة هل كان كائن وصل قلنا إنه يستحرينه ميكي ديكتاتور كها وحكم العظمي volunteerism دل يرى سوق تي ودون يستي إلى دفترها هرجيسة نظيف السوق oo la yiri ma nadiifin kartaan ayuu ka bilaabmay halgankii lagu xoreeyay Soomaaliland marka taa aad ka timaadid markii dagaaladu dhaceen ee SNM laftigeeda markii la abaabulayay mushaharana lama siinaynin dad volunteers ah oo ka diiray dhibaatada dadkooda iyo dalkooda la soo darstay ayaa inta kaceen ka diidiyay oo yiri wax laga qabtaa وعبدكريم استجي تلفزيون كعالمي وحرية 24 TV عاصمة الصومال لنا هرقيساء